yuhuud nacaybku ma uusan bilaabmin wakhtiga Adolf Hitler. Antisemitismka waxaa loo yaqaanaa ama noqonaya yuhuudiyada ama yuhuud nacaybku waxa uu soo socday ilaa sanadkii 1870kii. Ka hor intaanu Adolf Hitler samayn xeryihii yuhuudda lagu xasuuqi jiray ee Holocaust la odhan jiray, waxaa jiray caddaymo muujinaya inay jireen xeryo kale oo lagu haystay ama lagu xarin jiray dadka yuhuudda ka soo jeeda, waxaana haysashada yuhuuddu socotay ilaa tan iyo casr jaahiligii. Magaca Holocaust waa magac asal ahaan Giriiga oo noqonaya markaasi holos iyo kaustos, waxaanay kala noqonayaan holos oo la micno ah dhammaan ama kulli, iyo kaustos oo la micno ah la gubay. Sidaasina magacu wuxuu samaynayaa micnaha ah dhammaan waa la gubay. Laga soo bilaabo sanadkii 1945 oo ku beegan waqtigii dagaalkii labaad ee dunidu soo idlaaday, kelmaddan Holocaust waxay yeelatay micnayaal aad u foolxun. Xukunkii Naasiyiinta ayaa intii u dhaxaysay sanadihii 1933 ilaa 1945 fuliyay dilwadareedyo loo geystay malaayiin ka mid ah yuhuuddii qaaradda Yurub deganaa. Xasuuqu yuhuudda oo keliya kuma aanu ekaane waxaa wakhtigaasi dilwadareedyo loo geystay malaayiin kale oo ay ka mid yihiin dadkii Roomaaniga ahaa oo ahaa dad reer guuraa ah markaasna deganaa qaaradda Yurub, laakiin asalkoodii ka soo farcamay Hindiya. Dadkii xasuuqa loo geystay waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii garaadka naafada ka ahaa. Dadka isku jinsiga ee isu galmooda ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka xasuuqani uu saameeyey. Hogaamiyahan mayalka adag ee horkacayay aragtidan yuhuud nacaybka ee Adolf Hitler ayaa dadka yuhuudda u arkayay inay yihiin dad jinsi ahaan ka hooseeya dadka asal ahaan Jarmalka ah, waxauna markaasi u haystay in dadkan yuhuuddu ay halis ku yihiin bulshadiisa. Sannado badan oo Naasiyiintu ka talinayeen Jarmalka, dadka yuhuudda ahna aad loo silciyeyna la laayay, ayaa ugu dambeyn hogaamiyihii Naasiyiinta ee Hitler la yimi qorshihii kama dambaysta ahaa ee yuhuudda ku soo afjarayay. Waa qorshe si weyn uga dhex muuqday dagaalkii labaad ee dunida, waana qorshaha la magac baxay The Holocaust. Xarumo waaweyn oo dadka si wadar loogu laayo ayaa ay Naasiyiintu ka dhiseen waddanka Poland oo markaasi ay iyagu haysteen. Qiyaastii ilaa 6 milyan oo yuhuud ah iyo ilaa 5 milyan oo dadka kale ah, kuwaasi oo loo bartilmaameedsaday hayb ahaan, siyaasad ahaan, aragti ahaan iyo dhaqan ahaan ayaa lagu xasuuqay xeryihii Holocaust la magac baxay. In ka badan 1 milyan oo ka mid ah dadka xeryahaasi lagu xasuuqay waxay ahaayeen carruur aan qaangaadhin. Magacaygu waa Mo Carafad, halka aad iga daawanaysaan waa shabakadda Mo Reports. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar gambalelkana furo. Nacaybkan xadka dhaafay ee Hitler uu qabay yuhuudda ma aha weli mid cad. Asal ahaan, Hitler wuxuu ka soo jeedaa dalka Austria oo halkii uu ku dhashay sanadkii 1889. Wuxuu ka mid ahaa askartii ciidanka Jarmalka ee dagaalkii koowaad ee dunida ka soo qayb qaatay. Markii dagaalkii koowaad ee dunidu soo dhammaaday, Hitler waxa uu guuldarradii Jarmalka dagaalkaasi ka soo gaadhay u xambaariyey inay sababteeda leeyihiin dadkii yuhuudda ahaa ee Yurub ku noolaa wakhtigaasi. Markii dagaalkii koowaad ee dunidu uu dhammaaday, Hitler waxa uu siyaasad ahaan ku biiray xisbigii shaqaalaha ee Jarmalka, markii dambena isku beddelay xisbigii Naasiyiinta. Sanadkii 1923 Hitler waa la xidhay, waxaana lagu eedeeyey inuu khiyaamo qaran ku kacay. Intii uu xabsiga ku jiray ayaa uu sameeyey xasuus qor ugu magac daray Mein Kampf oo ah kelmad Jarmal ah lana micno ah halgankaygii. Xasuus qorkan waxa uu ku saadaaliyay dagaal baahsan oo ka dhacay Yurub oo dhan, markaasina dagaalkaasi uu sababay in yuhuudda waddanka Jarmalka degan la cidhib tiro. Hitler waxa uu ahaa mid aad ugu mayal adag aragtida ah sarreynta dadka Jarmalka ah ama dadka Jarmalka asal ahaan ka soo jeeda ee uu bixiyey Aryan, iyo sidii uu dadkaasi Aryanka ula baxay ugu heli lahaa nolol ka wanaagsan ta dadka kale ay haystaan. Markii Hitler xabsiga laga soo daayey 10kii sano ee ugu horreeyay soo dayntiisa, waxa uu aad uga faa'iidaystay habacsanaantii ka muuqatay xisbigii ay iska soo horjeedeen, waxaanu xisbigiisii Naasiyiinta ka dhigay xisbul xaakimkii gudaha Jarmalka. 30kii bishii koowaad 1933
waxaa loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii Jarmalka ee dowladdii markaasi joogtay sanadkii 1934 markii uu geeriyooday madaxweynihii dalkuna waxa uu Hitler isu magacaabay inuu yahay hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka, the supreme leader. In dadka dhaladka ee Jarmalku ahaadaan kuwo aan la tarixin ama aan badhax lahayn iyo dhulbalaadhsigu waxay ahaayeen labadii aragtiyood ee buddhiga u ahaa aragtidii siyaasadeed ee Hitler uu ka lahaa dunida markaasi. Markii ugu horreysayba Hitler iyo xisbigiisii naasiyiintu waxa ay bilaabeen qorshe ka dhan ah qolyaha ay iskaga soo horjeedeen siyaasadda sida xisbigii shuuciyiinta ama xisbigii dimuqraadiga ahaa. Xabsiyadii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay waxa uu sanadkii 1933 ka dhisay meel ku dhow magaalada Munich. maxaabiistii ugu horreeyay halkaasi lagu xidhayna waxay ahaayeen kuwii aaminsanaa shuuciyadda oo markaasi ay isaga aragti ahaan iskaga soo horjeedeen siyaasadda. isla sanadkii 1933 xeryihii xabsiyada ahaa waxay naasiyiintu isugu keeneen 27,000 oo maxbuus, kuwaasi oo hortooda lagu soo bandhigay dibadbaxyo lagu gubayay kutubtii Yuhuudda, buugaagtii xisbiga shuuciyiinta. sidoo kale waxaa mudaharaadka lagu soo bandhigay nacaybka ajaanibta. dhammaan ficiladaasi waxay dardargeliyeen qorshihii uu xisbiga naasiyiintu ka lahaa inay fariintooda faafiyaan. sanadkaasi 1933 Yuhuuddii ku noolayd gudaha Jarmalku waxay ahaayeen 525,000 oo qof oo u dhiganta 1% bulshada Jarmalka. 6 sano ee xigtay wakhtigaasi naasiyiintu waxay bilaabeen inay dalka Jarmalka oo dhan ku soo koobaan kaliya dadka Aryanka ah. wixii aan Aryanka ahayn ama asal ahaan aan ka soo jeedin ee ku noolaa gudaha Jarmalka waxay ka joojiyeen dhammaan adeegyadii bulshada. waxay sidoo kale burburiyeen dhammaan ganacsiyadii ay dadka Yuhuudda ay lahaayeen. sidoo kale dhakhaatiirtii iyo sharciyaqaanadii Yuhuudda ahaa waxay ka xayuubiyeen awooddii waxayna kala wareegeen macaamiishoodii. 1935 xisbigan talada haya ee naasiyiintu waxay soo saareen sharci odhanaya qof kasta oo 3 ama wixii ka badan oo ayeeye ama awoowo Yuhuud ah lehi uu noqonayo Yuhuudi. kii markaasi leh 2 ama 1 sharcigu wuxuu u aqoonsanayaa inuu yahay mid iska dhal ah. sharcigani markii uu soo baxay wixii ka dambeeyay Yuhuuddu waxay noqotay bartilmaameedka ugu horreeya ee dhaleecaynta iyo eedda loo jeediyo. khalad kastana markaasi iyaga ayaa lagu sababeeyey, waxaana arrintani ka dhashay ficilkii la magac baxay habeenkii muraayadaha jajaban oo ahaa bishii 11aad 1938. habeenkaasi taalooyin badan oo gudaha Jarmalka ku yaala ayaa la gubay, waxaana la wada jabiyey dhammaan daaqadihii dukaamada Yuhuuddu ay lahaayeen. ilaa 100 qof oo Yuhuud ayaa la dilay habeenkaasi, tiro kale oo ilaa 1,000 gaadhaysana waa la xidhay. sanadihii u dhaxeeyay 1933 ilaa 1939 boqolaal kun oo ka mid ah Yuhuuddii awoodeysay inay dalka Jarmalka iskaga baxaan ayaa markaasi sidaasi kaga baxay Jarmalka, halka kuwii aan ka bixin ee ku hadhay gudaha Jarmalkuna ay ku sugnaayeen hubanti la'aan iyo cabsi joogto ah. 1939 ciidanka Jarmalku wuxuu qabsaday qaybta galbeed ee waddanka Poland, isla markaasina ciidanka Jarmalku waxay bilaabeen inay si qasab ah Yuhuuddii deganeyd Poland xaafadoodii iyo hantidoodii ka wareejiyaan, kuna wareejiyaan dadkii dhalasho ahaan Jarmalka ka soo jeeday ee markaasi ku noolaa Poland. xaafadihii ay deganaayeen Yuhuuddii ku noolayd Poland ayaa waxaa lagu wareejiyey gidaar silig ka samaysan si looga takooro dadka kale. sidaasina shacabkii asalkooda Yuhuudda ka soo jeeday ayaa xaafadahoodii lagu ooday, waxaana loo sameeyey guddi maamusha xaafadahaasi oo isla Yuhuudda ka soo jeeda. maadaama laga ooday bulshada intoodii kale, waxaa kordhay shaqo la'aantii ku habsatay bulshada Yuhuudda. fakhrigii ayaa samada isku shareeray, waxaana xaafadihii lagu ooday Yuhuudda ka dilaacay xanuuno saameeyey bulshadii siligaasi lagu ooday. dayrtii sanadkii 1939 saraakiishii naasiyiintu waxay soo xuleen 70,000 oo Jarmal ah, kuwaasi oo qabay xanuunadii dhamirka ama laxaadkoodu aanu dhammayska tirnayn. dhammaanna dadkaasi waa la wada laayay iyadoo loo isticmaalayo sharci ay naasiyiintu sameeyeen. arrinkani dilwadareedka ayaa dadka laxaadkooda aanu dhammayska tirnayn loo geystay waxaa ka cadhooday wadaadadii diimaha ee Jarmalka, markaasina ku mudaharaaday.
sidaasi darteedna Hitler ayaa bishii 8 ee sanadkii 1941 sharcigii ogolaanayay xasuuqan dastuurka ka saaray, laakiin dilka loo geysanayo dadkani ma aanu joogsan si hoose ayuu u sii socday. Sanadkii 1945 275,000 oo qof oo ahaa dadka aan laxaadkoodu dhammayska tirnayn kuna kala noolaa guud ahaan qaaradda Yurub ayaa la soo ururiyay, dhammaantoodna dilwadareed ayaa lagu fuliyay. Gugii iyo xagaagii sanadkii 1940 oo ku beegnayd waqtigii uu dagaalkii labaad ee dunidu socday, ciidankii Jarmalku waxay sameeyeen dhul ballaadhsi ah qaaradda Yurub, sidaasina wadamo hor leh ayaa xukunkii Hitler loo gudbiyay, waxaana naasiyiintu sidaasi ku qabsadeen wadamada Denmark, Norway, Holland, Belgium, Luxembourg iyo Faransiiska. bilowgii sanadkii 1941 dhammaan Yuhuudii ku noolayd qaaradda Yurub iyo 100,000 oo dadkii Roomaaniga ahaa ayaa la isugu geeyay xeryihii siliga lagu wareejiyay ee naasiyiintu ka dhiseen waddanka Poland. qabsashada ay ciidanka Jarmalku qabsadeen wadamadii Soofiyeedka bishii 6 ee sanadkii 1941 ayaa sababtay qaab hore loo arag oo dilwadareedyo ah, waxaana halkaasi si wadara loogu laayay 500,000 oo Yuhuudii ku noolayd wadamada Soofiyeedka, dhammaantoodna waxaa loo laayay qaab toogasho oo ay fuliyeen ciidankii Jarmalku. bishii 7 1941 sarkaal ka mid ah kuwii ugu sarreeyay ee ciidankii Hitler ayaa soo saaray qoraal uu ku codsanayo in arrinkan Yuhuudi ee dabada dheeraaday la soo afjaro. isla bishii 9 ee sanadkaasna dawladdu waxay soo saartay amar ah in qof kasta oo asalkiisu Yuhuudi ka soo jeedo maryaha uu xidhan yahay lagu dhajiyo xidig huruud ah si markaasi loo garto inuu qofkaasi yahay Yuhuudi, waxaana calaamadan ciidanka Jarmalku u fududeynaysay inay si fudud u bartilmaameedsan karaan Yuhuudda, markaasina aanay dadka kale kaga dhex dhuuman karin. sidaasina 10,000 oo Yuhuuda ayaa lagu tarxiilay xeryihii Yuhuudda lagu ururinayay ee waddanka Poland ku yaalay iyo wadamadii Soofiyeedka ee markaasi ciidanka naasiyiintu haysteen. laga soo bilaabo bishii 6 ee sanadkii 1941 ciidankii naasiyiintu waxay bilaabeen tijaabooyin hor leh oo ku aadan sidii maxaabiista si fudud loogu xasuuqi lahaa. bishii 8 ee sanadkaasi 500 oo saraakiishii naasiyiinta ah ayaa sameeyay tijaabadii ugu horeysay, waxaana 500 oo ka mid ah maxaabiistii ay haysteen ku buufiyeen maadada Cyclone B oo ah maaddo sun ah kana samaysan gaas, sidaasi ayayna ku wada dhinteen dhammaantood. dabayaaqadii sanadkii 1941 ciidankii Jarmalku wuxuu bilaabay in dadkii xaafadaha gidaarada siliga lagu wareejiyay ee Poland ku xaraysnaa loo daadgureeyo xeryihii loogu talagalay in xasuuq wadareedka lagu fuliyo, waxaana dadka la raafayo loogu horeysiiyey kuwii markaasi ugu jilicsanaa loona arkayay inaanay wax anfac ah lahayn, sida dadka waaweyn, kuwii xanuunsanayay, kuwii tamardarradu haysay iyo kuwii aadka u yaryaraa. sumayntii ugu horeysay ee maxaabiiskaas lagu buufiyo waxay dhacday bishii 3 1942 waxaana ka dhacday kaam lagu magacaabo Belzec. isla sanadkaas 5 xarumood oo cusub oo loogu talagalay in dadka lagu xasuuqo ayaa laga dhisay gudaha waddanka Poland. intii u dhaxaysay sanadihii 1942 ilaa 1945 Yuhuudda waxaa laga soo daadgureynayay dhammaan qaaradda Yurub, waxaana lagu guriyay xeryihii loo qoondeeyay in lagu xasuuqo. wadamadii laga soo guriyay Yuhuudda waxay ahaayeen wadamadii Jarmalku haystay iyo kuwii taageersanaa Jarmalka siyaasad ahaan. tarxiilkii ugu weynaa ee dadkaas lagu sameeyay waxa uu dhacay xagaagii sanadkii 1942 markii 300,000 oo Yuhuuda laga soo guray xaafadihii magaalada Warsaw ee dalka Poland ku yaalay ee markaasi siliga lagu wareejiyay, waxaana dhammaantood loo tarxiilay xarumihii lagu fulin lahaa xasuuqa. dadkii Yuhuudda ahaa ee deganaa xaafadahan siliga lagu ooday oo u adkeysan kari waayay tarxiilkan joogtada ah, xanuunadan ka dilaacay xaafadahan oodan, fakhriga iyo gaajada ayaa sanadkii 1943 bilaabay kacdoon hubeysan oo ay kaga hortagayaan ciidankii naasiyiinta,
iska horimaadkanina wuxuu ku dhammaaday in 7,000 laga dilo ciidankii yuhuudda ee kacdoonka bilaabay. 50,000 oo kale oo ah kuwii dhimashada ka badbaadayna waxaa loo tarxiilay xeryihii dabargoynta. ciidankan yuhuudda ee kacdoonka bilaabay ayaa muddo bilaa iska caabinayay ciidamada naasiyiinta. iska caabintanina waxay dhiirigelisay yuhuuddii kale ee ku xaraysnayd xaafadaha oodan iyo xarumihii dabargoynta ee waddamada Jarmalku haystay ku sugnaa inay iyaguna bilaabaan kacdoon. ciidankii naasiyiintu waxa uu qorsheeyey in xasuuqa ka dhacaya xarumaha dabargoyntu uu ahaado mid sir ah oo aan la ogaan, laakiin baaxadda uu xasuuqani lahaa awgeed qorshihii ahaa in la qariyo ayaa fashilmay. goobjoogayaashii xasuuqani ayaa soo gudbiyey wararka ku saabsan xasuuqan, laakiin waddamadii Jarmalka xulafada la ahaa ayaan arrinkaasi marnaba ka hadal. warka xasuuqana aan soo tabin. markii dagaalkii labaad ee dunidu dhammaaday ayaana lagu eedeeyey waddamadaasi inay ka gaabiyeen inay markaasi dunida la wadaagaan, waxaana lagu sababeeyey in waddamadaasi muhiimadda ay saareen sidii ay dagaalka labaad ee dunida oo markaasi socday ugu guulaysan lahaayeen oo keliya, walow markii dambe ay noqdeen kuwii dagaalka lagu jebiyey iyagu. keliya xeradii dabargoynta ee Auschwitz oo ku taalay waddanka Poland ayaa in ka badan 2 milyan oo yuhuud ah hal mar loogu dilay qaab sumayn ah. xarumahan dabargoynta waxaa shaqaale ka ahaa dad yuhuuda iyo kuwa aan yuhuud ahayn, laakiin kuwa yuhuudda oo keliya ayaa la sumaynayay. kumanaan kale oo ku sugnaa xeryahan ayaa u geeriyooday gaajo iyo xanuuno ka dilaacay gudaha xeryahani. isla sanadkii 1943 xeradii Auschwitz waxaa yimid dhakhtar lagu magacaabo Joseph Mengele oo ah dhakhtar qaabilsan dhinaca jinsiga noolaha. dhakhtarkan ayaa gudaha xaruntani ka fuliyey tijaabooyin caafimaad, waxa uuna tijaabada ku sameeyey maxaabiistii yuhuudda ee xeradani ku xidhnaa. dhakhtarkani qaybta sida khaaska uu markaasi cilmi-baadhista uga waday ayaa ahayd qaybta mataanaha, waxa uuna mataanihii xaruntani ku sugnaa ku muday waxyaabo ay ka mid yihiin batrool iyo chloroform oo ah maaddo aan bini'aadamka loogu talagelin, sababi kartana in neerfayaashu shaqayn waayaan, ilkuhuna soo daataan. tijaabooyinkiisan awgeed dhakhtarkani ayaa loogu bixiyey naanaysta ah The Angel of Death oo la micno ah malaggii geerida. gugii 1945 oo ah markii uu dagaalkii labaad oo dunidu soo gabagaboobay, garabkii uu Jarmalku ka mid ahaana markaasi dagaalka lagaga gacan sarreeyey oo ay guuldarrada wehel u yihiin markaasi labadii sarkaal ee ugu sarreeyey dowladdii Hitler hogaaminayay ayaa mid kasta goonni u istaagay Hitler iyagoo faquuqaya markaasi, sidaasina xukunkii dalka Jarmalka ayay kula wareegeen. markaasi hogaamiyihii kaligii taliyaha ahaa ee Hitler oo aan cidila socon wax garab ahna aan haysan markaasi dagaalkiina lagu jebiyey isaga iyo ciidankiisaba ayaa hadlay, waxa uuna guuldarrada dagaalkan ka soo gaadhay Jarmalka ku eedeeyey yuhuudda caalamka iyo taageerayaashooda. shacabkii Jarmalkana waxa uu dardaarmay inay ka digtoonaadaan masiibada yuhuuddu ay Jarmalka iyo dunidaba la damacsan yihiin. maalintii uu hadalkaasi jeediyey, maalintii ku xigtayna hogaamiyihii mayalka adkaa ee Adolf Hitler ayaa gacantiisa isku dilay. geeridan Hitler marka laga joogay hal usbuuc oo ku beegnayd 8 bishii shanaad 1945 dowladdii Jarmalka ayaa si rasmi ah isu dhiibtay ogolaatayna guuldarrada dagaalka labaad ee dunida ay kala kulmeen. sanadkii 1953 dowladdii Jarmalka ayaa magdhow siisay shakhsiyaadkii yuhuudda ahaa ee Yurub markaasi ku sugnaa, si guudna magdhow u siisay yuhuudda, waxaanay dowladda Jarmalku magdhowgan u bixisay si ay uga garaabaan xasuuqyadii waxashnimada lahaa ee magacooda loogu geystay qowmiyaddii yuhuudda. inta aynan muuqaalkan oo kale ku kulmin ka hor waxaan mar labaad kaa codsanayaa channelkeena Mo Reports aad subscribe saarto, haddii aad asxaabteena ka mid tahayna muuqaalka like saar. mahadsanid.